الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت كذب ولا ريال الله سبحانه وتعالى دونك مؤمن كأهو جعليه خير كانوا لجعليه فضل آدف ربنا النوسي ينعمون الله سوكو بكرين إلهي إياكم هتسمد أيضا الدنيا آخرة إلى ما هدوا أي كرمانيسو نعموينك هو وين إلهي سبحانه وتعالى إن السي وحكم الأول ليال إن أكي إلي ملائكة حاملة العرش عرش إلهي حنبارسن يا ملائكة مقربين تا إلهي أكجوكتا إن أكي إلي إن أي نود عيان أنك مسلمين تا أو أي دنبداف إلهي نوي ديان أو أي نوصل ليان إلهي سبحانه وتعالى أيضا دوره ayuu ku sheegay arrinka asaga ah midaasina waxay muujinaysaa manzilada iyo booska oo qofka muslimka ah oo Ilaahay agtiisa ka joogo iyo nicmada weyn oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay oo u baahan runtii had iyo jeer qofka muslimka inuu xasuusnaado dareensanaado Ilaahayna subhanahu wa ta'ala uu uga mahdiyo qowl iyo amalba walaalayaal ducada malaa'iktu ay noo ducaynayso waa duco aad u qiimo weyn وآد وشرف وين أثر كذا يسامين تذا أي نلشنا الدنيا يمد آخر كوي لنا سنة آد أي وين تهاي دعين كانوا عصا كلاته والدعاء له إن أي أقبل تهاي لأنه ملائكته إلهي سبحانه وتعالى وحو أبو ري قاب أهين يسندن بقرن وبكه فيهم بين معاصي إلهي كل عام آيات آد فربنا أيها الله سبحانه وتعالى كشيء ساجدك قيبتك قريب بنانتهاي هدي أدو بانتهين الله فول إن شاء الله مركا إلهي سبحانه وتعالى ما دام خير كان لجع عليها وحو نقو بوريي ونقو ترتسيي إن أن كفا إذي سنو وأن لا إيمانو أعمال مركا أن سمينو ملائكتو أي رود عينيش وحاذا وقالتنا ولا ليال أما أن أقنهاي dad badan oo naga mid ah hadii ay fursad u helaan inay la kulmaan qof caalim ah qof caabid ah qof lagu tuhmaayo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka cabsanayo oo wali ah qof kasta wuxuu isku dayayaa oo isku taxallujinaya qofkaas asaga inuu Ilaahay u bariyo kulligeena waa naqaana arrinkaas bal dadka qaar waxa laga yaabaa qof ka maqan oo walaalkiis ah ama saaxiibkiisa ah ama riximkiisa oo og yahay inuu Ilaahay ugu dhow yahay in uu telefoon ama la xiriiro oo uu ka codsado inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u bariyo li'annahu wuxuu og yahay oo uu ka rajo qabaa qofkaas walaalkiisa ah ee cibaadada Ilaahay ku dhaama oo cabsida Ilaahay ku dhaama in ducadiisu ay aqbal noqonayso dareenkaagu suu noqonayaa hadii lagu yiraahdo caalim hebel iyo caabid hebel iyo wali Ilaahay oo meel halkaas ajooga ayaa had iyo goorkood ku duceynaya dambi dhaaf Ilaahay ku weydiisanaya shaki ma lahan inaad aad ugu farxayso oo aad ku boogagsanayso arinta ayada ah oo qalbiga uu ku farxayo Ilaahayna aad uga mahadinaysid ka waran marka hadii qofka ama cidda ay ku duceynayso ay tahay malaa'ik waa malak ما أهن شيخ هبل إيو عالم هبل إيو داعي هبل إيو إمام هبل إيو ما أهن قفك كود دعينايو وإلهي دم بداف كوي دي سنايو هديء ملك يهي قفك استو مسلم مرتبة أو آد أوين هي منزلة آد أسر ريسا وإسكت حلو جنايا وكد دالايا سيدو أقاري لها هذا واحد وقتان إلهي سبحانه وتعالى درجadaas ayada ah si sahlan oo aad u fudud ayuu inoogu suurto galinayaa asbaab dhowr ah oo kooban oo fudud hadii aan la imaano al-imaam ibn jamaa'a wuxuu leeyahay darajo gaaraysa malahan ama ka sareysa qofka muslimka ah in malaa'iktu ay ku howlan tahay oo ay ku mashquulsan tahay inay u duceyso dambi dhaaf ay Ilaahay u weydiiso sidaysan saas u noqonaynin halka qofka saalixa ah ee wanaagsan ama la tuhmaayo inuu wanaagsan yahay ducadiisa ay dadku ku tartamayaan oo ay isku mashquulinayaan ducada malaa'ikta marka heerkee ay joogto ayuu leeyahay imaamku rahimahullah
ملائكة إلهي وحاد وغاتان أحبابي إن دعاء أقبلتها دعاء أقبل ولا ما علنها لأنه حنسوا شيخني إلهي أيا أبو رئيسا إلهي كعاسني إلهي أيا نوشيغي iyo culimada islaamku in ducadoodu ay aqbal tahay Imam Battal arinkaas uu soo guurinaya oo wuxuu leeyahay waa la og yahay ducada malaa'ikta inay aqbal tahay Ibn Hajarna wuxuu ka soo guurinaya Imam Abi Jamra wuxuu leeyahay shaki ma lahan ducada malaa'ikta ama habaarkooda inuu aqbal yahay Nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa arinkaas ku cabsiyay oo haweeneyda hadii ninkeeda uu u baahdo hadday u imaan weyso nabiga wuxuu sheegay kaleey salaatu wasalaam malaa'ikta ilaa inay lacnadayso hadii aysan ahaan lahayn ducada malaa'ikta ama habaarkooda inuu aqbal yahay nabiga kaleey salaatu wasalaam kuma cabsiyeen waxaad ogaataa marka dad xul ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu doortay inay jiraan oo la imaanaya asbaabo keenaysa malaa'iktaas aan ka soo sheekeynay fadaa'ishooda qaar ka mid ah inay u duceynayaan malaa'iktu si guud mu'miniintu oo dhan way u duceynayaan laakiin si gaar ah waxaa jirto acmaal khaas ah oo loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu maanka ku hayo uu hortiisa dhigo mar walbana uu ku dadaalo sidii uu ula imaan lahaa toban ka mid ayaan soo qaadanaynaa waxaa ka mid ah qofka inuu masaajidka joogo salaada ka hor ama salaada ka gadaal xadiiska Abi Hurayra ayaa arinkaas muujinaya nabiga wuxuu leeyahay kaleey salaatu wasalaam malaa'iktu ay duceynaysaa midkiina inta uu fadhiyo meesha uu ku tukaday inta uusan xadath la imaanin inta ay weysadu ka burin maxay leedahay ilaahay u dambi dhaaf ilaahay u naxariiso waxaan soo sheegnay ducada malaa'ikta inay aqbal tahay marka u dambi dhaaf haday tiraahdo tilqaa'iyan waa lagu dambi dhaafi u naxariiso haday tiraahdana sidoo kale marka adiga iyo inta hammi oo kugu jira ee aad ducadaas malaa'ikta ah aad rabto ayaad masaajidka joogaysaa 10 daqiiqo 20 saacad 2 saac ka badan ka yar qof walba duruuftiisa iyo xaaladiisa inta ay xakameynayso nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiis kale qofka kama zuulayo inuu salaada ku jiro inta uu fadhiyo meesha uu ku tukaday malaa'iktuna waxay leedahay ilaahay u dambi dhaaf oo u naxariiso ilaa qofka uu iska tago ama weysadu ay ka jabto marka culimada islaamku waxay isku khilaafeen nabiga wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam meesha uu ku tukaday ma waxa laga wadaa booska uu ku tukaday mise masaajidka oo dhan sida saxda ah oo Imam Zaynuddin Ciraaqi uu soo guurinayo waa masaajidka oo dhan labada ihtimaal ba waarid u leeyahay laakiin ihtimaalkan dambe oo in la yiraahdo masaajidka oo dhan waaye ayaa xoog badan ayuu leeyahay ficilka nabiga kaleey salaatu wasalaam sidaas ayaa laga dareemayo nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu tukado meeshiisa ma joogaayo oo waatii uu u soo jeesan jiray saxaabadiisa marka arinkaas waxa raajix ah qofka intuu masaajidka ku jiro ajirkaas asaga iyo fadligaas wuu helayaa salafkuna sidaas ayay sameyn jireen Saciid ibn Musayyib rag badan oo noocaas oo kale ayaa laga soo guuriyaa Imam Ibn Battal wuxuu leeyahay qofka dambiga uu ka batay doonayana si fudud oo aan dhibaato badan aysan ku jirin in uu dambigiisa tirtiro oo loo dhaafo ha ka faa'iideysta ayuu leeyahay inuu sii joogo meesha uu ku tukaday si uu u badsado ducada malaa'ikta iyo dambi dhaafka ay ilaahay dambi dhaaf weydiisanayaan maxaa yeelay ducadoodu waa aqbal sidaas ayuu leeyahay culimada islaamka marka waxay leeyihiin qofka hadii uu cudur daar leeyahay oo mesela uu xanuunsan yahay oo mesela uu ka cabsanayo masaajidka inuu yimaado oo marka gurigiisa ku tukado ama dukaankiisa ama haweeneydu ay ku tukato gurigeeda waa loo rajaynayaa fadliga isaga ah inay helaan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajirkaas uu siiyo fadliga ilaahayna waa waasic marka sababka koowaad ee aad ku helayso ducada malaa'ikta iyo inay dambi dhaaf ilaahay ku weydiiso iyo inay kugu saliso waa inaad masaajidka joogtaa oo aad soo degdegtaa ama marka salaada la tukado kadib aan degdeg u bixin hadii aysan dan ku haynin oo aad meesha ka sii faa'iideysataa sababka labaad qofka inuu ku tukado safka koowaad ama safka labaad ama safka saddexaad hadii uu fursad u heli waayo nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa laga wariyay inuu yiri ilaahay iyo malaa'iktiisa way ku saliyaan dadka ku tukada sufuufta hore
marka hore safka koowaad uu dhahay riwaayad kale saxaabada waxay dhaheen nabi allow safka labaadna ku dar nabi wuxuu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igtiisa waxay ku salliyaan safka koowaad kuwa ku tukaday safka labaad mar labaad markay ku celiyeen wuxuu yidhi huwa cala athani nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa nasiib darro ah oo runtii qof kastoo muslima uu aada uga xumaado dad badan oo muslimiinta ka mid ah oo aada isugu taxallujiyey inay salaada jamaaca ku tukadaan oo ku dadaala in badanoo ayaga ka mid ah in ay iska dhaafeen in ay ku dadaalaan safka koowaad iyo labaad inay ku tukadaan danba uma yeelanayaan oo umaba aaba yeelayaanba waxaana ku kicinaya mararka qaar way caadaysteen oo sidaas ayay barteen mise kasal iyo waxaa u geeyey cajis qaar badan oo ka mid ah maba ogaba fadliga uu leeyahay in lagu tukado safka koowaad marka waxaad arkaysaa kuwo badan oo iyaga ka mid ah qofka asagoo heli kara safka koowaad inuu ku tukado oo uu haleelayo takbiiratulixraam inuu iska soo daaho meelahan iska taagnaado heer uu ay dhaafto takbiiratulixraam bal qaarkooda ay dhaaftaba rakcada koowaad ama rakacaadka qaar uu ka soo gaaro imaamka oo sii gabagabaynaya salaadiisa qofkaas isagaa ah nasiib darro ayaa hayso haddii uusan mashquulsanayn qofka waxaa laga rabaa inuu soo degdego si uu fadiiladaas iyada uu helo iyo ducada malaa'igta calayhim assalaam laakiin kuwaas waxaa ka daran dad qaar oo masaajidka xilli hore imaanayo dantiisa uu ka soo tegey howlihiisoo dhan uu ka soo tegey masaajidkuu yimid wuu ku jiraa haddana waxaad arkaysaa geeskaasuu iska fadhiyaa khaasatan odayaasha ayaa u badan arrinkaas xagguu iska fadhiyaayo safka hore iyo ka labaad kulli cid joogta maba lahan waxaa laga yaabaa 20 daqiiqo 30 daqiiqo saacad ka hor inuu masaajidka yimaado salaada intaan la aqrimin ama aan la aadiminba laakiin meeshaas ayuu iska fadhiyaa waxaa laga yaabaa inuu isaga mashquulsan yahay howlo kale arrinka asaga ah halisteeda ayay leedahay waciid ayaana ku soo arooray nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka digey xadiidka abi saciid al-khudri wuxuu leeyahay nabiga wuxuu arkay saxaabadiisa qaar oo salaada ka soo daahaya nabigu wuxuu ku yidhi soo hormara oo igu dayda dadka idinka dambeeyana idinku daydeene wuxuu yidhi marka nabiga calayhi salaatu wasalaam goodi ayuu bixiyey dad kama zuulayaan inta ay isdaahinayaan oo ay khayrka ka daahayaan heer ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku harsiiyo oo uu ku dambaysiiyo naarta jahannamo walciyaadu billah marka dadka noocaas oo kaleeta ah waxaa la ogeysiinayaa oo lagu boorinayaa in ay markay imaadaan oo ay danahooda soo xiraan safka koowaad ay ka faa'iidaystaan oo aysan cidna u dhaafin laakiin saan sheegnay khaasatan soomaalida arrinkaas maba ku baraarugsanaba khaasatan masaajidada waaweyn qofka kursigu iska qaadanaya meeshaasuu iska fadhiyaa xataa qofka haddii ay fursad u siiso inuu safka koowaad ku tukado xataa hadduu soo daahay ma ka faa'iidaysanayo maalin dhoweyto yar aan qaraabanahay ayaan isla soconnay masaajid ayaan taqriiban aadaanka oo 10 daqiiqo ka dhiman tahay nimid safka hore dadka waa buuxeen alxamdulilah laakiin dulduleelo ayaa jiray oo qofku uu ka faa'iidaysan karo marka qofka muslimka ah sidiisaba waa qof xikmad badan oo murti ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala dadkana khayrka waa isla jecel yihiin marka qofka inaad riixdid oo adoo jacabuus ama aha laakiin haddii uu kaa arko dhoola caddayn iyo muusood iyo inaad danaynaysa safka koowaad inuu ku tukado adigoon xataa dhihin iga duruq ayuu kaa durki adiga marka qof baan u qosolnay waa u muusoonnay waa inoo banneeyeen mid kalena uu sii xaggu u sii durkay taqriiban 2 qof meel ay geli karaan ayaa noo soo baxay anigoo isku ciriiriyey wadaadkii meesha uu soo galay cabaar uu istaagay haddana markii salaada la tukaday waxaan arkay soo geeska isku tukanayo markii aan salaada ka baxna ku baraarujiyay marka waxyaabahaas oo kale lama rabo waxyaabaha keenaya ducada malaa'igta waxaa ka mid ah midigta imaamka in lagu tukado xadiis culimadu isku khilaafsan yihiin sixadiisa al-imaam al-haafid ibn hajar uu leeyahay xasan nabigu wuxuu leeyahay ilaahay iyo malaa'igtiisa waxay ku sallinayaan dadka ku tukada midigta imaamka saxaabaduna way ku dadaali jireen inay nabiga calayhi salaatu wasalaam midigtiisa ku tukadaan sida uu cadeynayo xadiiska al-Baraa ibn Caazib oo imaam Muslim uu soo saaray al-imaam Xaafid ibn Rajab wuxuu leeyahay dhanka midig ee imaamka ayaa fadli badan haddii ma'muumiintu ay badan yihiin haddii kale waa waajib haddii uu keligiis yahay axaadiis dhowr ayaana ku soo aroortuu leeyahay laakiin culimadu waxay leeyihiin dhanka midig wuxuu fadli iyo thawaab badan yeelanayaa labada dhinac hadday siman yihiin ama ay isku dhow yihiin laakiin in dhinaca bidix oo dhan la banneeyo oo midigta un dadku ay isku guraan sax ma aha waxaa ka mid ah
acmaasha lagu helo waqtiga oo gaaban dartiisa ducada malaa'igta qofka inuu safka buuxiyo marka salaada lagu jiro ama la sii safanayo oo dadka salaada galaayaan duleelahana uu buuxiyo oo uusan banaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ilaahay malaa'igtiisa waxay ku saliyaan oo u duceeyaan malaa'igtu ilaahayna uu amaanayo oo naxariisanayo dadka sufuufta xiriiriya oo meelaha bannaan buuxiya qofkii meel bannaan buuxiyana nabigu wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala darajo ayuu kor u qaadayaa waxaa ka mid ah qof muslim oo walaalkaaga ah oo kaa maqan inaad u ducaysid nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qofkii sidaa sameeya madaxiisa waxaa taagan malag arrintaas ay tahay shaqadiisa iyo howshiisa shaqo kale oo ma laha shaqadiisu waxa weeyaan qof kastoo qof kale oo muslima u duceeya unbuu ag fadhiyaa oo ag jooga haddii aad u ducayso wuxuu ku leeyahay aamiin ilaahay oo hebel oo saaxiibkayga hebel oo qaraabadayda waxaasi haddaad tiraahdo wuxuu dhihi aamiin aamiinta lafteeda waa duco ilaahay uu ajiib waaye malak hadduu ku duceyna waxaa nahi ducadiisu waa aqbal intaa keliya miya maya wuxuu ku leeyahay mid la mid adigana waad leedahay marka waa wax baahan in laga faa'iidaysto faa'iidooyin badanaa ku jirta walaalkaa waa duceysay adiga waa duceysatay malag baa kuu aamiin dhahay wuu kuu sii duceeyey ilaa akhirihi walidaalika salafka ridwaanullaahi calayhim qaar badan oo ka mid ah haddii ay rabaan inay duceystaan horta waxay ka hormariyaan walaalahooda muslimiinta inay u duceeyaan alimaam alxaafid dahabi wuxuu soo guurinaya siira aclaam nubala saxaabiga abu dardaa inuu u duceyn jiray 360 qof mar kasta waa 360 qof salaadiisa markuu ku jiro haweenaydiisa la hadasho waxay tiri adiga maxaad isku daalinaysaa dadkan 360 maanta oo dhan u ducee adiga ma duceysatid na wuxuu ku yiri waxma ogide anigu soo ma jecli malaa'igta inay duceyso ina adiga duceysato iyo inay malaa'igtu duceyso keeba fadli badan inay malaa'igtu duceyso fiqigaas oo kale taa loo baahan yahay arrinka asaga ah imaam axmed iyo shaafici rag badan baa laga soo guuriyay inay walaalahooda u duceyn jireen waxaa ka mid ah asbaabaha keenaya malaa'igta inay ku duceyso in la booqdo qofka muslimka ee xanuunsan isbitaal yaalla ama gurigiisa cali baa laga wariyaa xadiis culimada isku khilaafsan yihiin ma marfuuc baa mise waa mawquuf laakiin wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qof kastoo soo booqda qof muslim oo xanuunsan galabnimo soo booqda marka uu ka sii baxayo gurigiisa waxaa raacaya uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam 70,000 oo malag 7 malag maaha 70 malag maaha 700 oo malag maaha 7,000 maaha waa 70,000 oo Soomaali miya maya 70,000 oo imaam miya maya 70,000 waa 7 eber oo malag waaye maxay qabanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay way u duceynayaan oo dembi dhaaf bay ilaahay weydiisanayaan intuu sii socdo kaliya miya maya haddii ay galab tahay nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaa waaga uu ka bariyo haddii ay subax tahayna ilaa galabka laga gaaro waa 70,000 oo malag oo dembi dhaaf ilaahay ku weydiisanayo saacad maahan 2 saac maahan 3 saac maahan waa maalinka oo dhan fadli aad u weyn waayo marka qofka muslimka ah waa qof xasiif ah oo saaxiibul aqli ah waxyaabaha noocan oo kale ah uu dafaa isla markiiba uu ku dhigaa maskaxdu dhigtaa jadwalkiisu ku darsanayaa usbuuciiba maalinkii haduusan ka gaari karin oo isku mashquulsan yahay usbuuciiba bishiiba intaasoo goor in ay shaqada uu qabanayo ku jirto dadka xanuunsan inuu soo booqdo fadligaas fadli sahlan ma aha walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala jaceylka iyo nicmada uu noo galay ayay ka mid tahay aan ka faa'iidaysano waxaa ka mid ah qofka inuu wax bixiyo oo uu dadka xuquuqdooda ku leh ilmaha iyo xaaska iyo waalidiinta iyo uu siiyo dadka masaakiinta ah ee qaraabada iyo kuwa fogba uu waxtaro laba malag ayaa soo degayso yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin kasta mid wuxuu u duceynayaa qofka wax bixiyo wuxuu leeyahay ilaahay bedel khayr qabasi midka kalena wuxuu leeyahay ilaahay khasaaro iyo ugu bedel haddii uu wax bixin waayo halaag marka qofka muslimka sidoo kale waxa laga rabaa micnaha inay qalbigiisa ku jirto oo uu lacagta uu haysto ama hantida uu haysto qaar ka mid ah uu gooyo oo uu qoondeeyo oo uu yiraahdo bishaan intaas ayaan sadaqaysanaya marka uu kala bixiyo ama uu hal mar qof siiyo uu og yahay inuu u baahan yahay laakiin qof aan jadwalkiisa iyo qorshihiisaba ku jirin inuu wax la baxo dhibaato marka imaadin la soo waco 5,000 bixi walaalo ma 2,000 iga qaad ninka asaga ah xaaladiisa ma fiicno qofka muslimka ah qof khayr jecel
sida aad ugu dadaalaysid adduunkaaga aakhiradaada iyo aayatiinkaaga dambe waa inaad ka fikirtaa waxaa ka mid ah dadka khayrka la baro nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtiisa dadka samada jooga dadka waxa dhulka jooga makhluuqaadka oo dhan dadka keliya ma aha xataa quraanjada meesha ku jirta iyo kalluunka inay u duceynayaan dadka khayrka bara khayrka haddii aad caalim tahay waa fadli aad u weyn oo aan la soo koobi karin haddii aadan caalim ahayn wixii aad soo faa'iidaysato aayad ha noqoto xadiis ha noqoto khudbadan hadda waxaad ka faa'iidaysato marka salaada laga baxo inta meel ku qortid qof walaalkaaga u dirtid xaaskaaga u sheegtid saaxiibada u sheegtid waa tacliimu nnaasi alkhayr way soo galaysaa walidaalika marka qofka muslimka inuu ka faa'iidaysto waxaa ka mid ah arrin aad u fudud oo dad badan aysan ku baraarugsaneen qofka inuu asoo weyse qaba saaxiib oo daahir ah xaaskaaga is aragteen qubayso adoo janaabo qabtaa seexanin ama iskaabula iska tahay oo maskiin ah weysiiso daqiiqad ma qaadanayso nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi addoon ma jiro asoo weyse qaba seexda oo daahir ah ilaa waxaa la seexanahayo ilaa baata macahu malakun fii shicaarihi shicaarka waxaa la yidhaahdaa dharka hoose fanaanadda dhexdeeda ayuu kula galayaa oo kula seexanaya adii horta shaydaan ma is arkaysaan intaas keliya maya mar kasta oo uu isgediyo habeenkoo dhan malag baa kuu duceynay muxuu dhihi allahuma kfir licabdika fainahu baata daahira ilaahay addoonkaaga u naxariiso maxaa liannahu wuxuu seexday isagoo daahir ah oo weyse qaba in laga faa'iidaysto oo dadkana loo sii sheego waa meesha ayay ku jirtaa waxaa ka mid ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in lagu saliyo salliga nebiga fadligiisa aad ayuu u badan yahay laakiin munaasabadda aan ka hadlayno waxaa weeyaan in ay malaa'ig ku ducayso nebigu wuxuu leeyahay addoon ma jiro igu salliya ilaa malag baa ku sallin malaa'ig inta uu igu sallinaayo maxaan samaynaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waa adiga iyo naftaada falyuqila alcabdu min dalika aw liyuksir boqol malaa'ig haddaa rabto inay kugu salliyaan boqol goor ilaa nebiga ku salli calayhi salaatu wasalaam kun maa doonaysaa waa adiga iyo shaqadaada boqol kun ilaa aakhiri inta aad rabto igu salli in la mid ah ayay malaa'igtu kugu sallaysaa ayuu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal marka waa abwaab khayr ah oo aad u weyn oo u baahan qof kastoo muslima inuu ka faa'iidaysto haddii aad wada samayn karto way fiican tahay qaar ka mid ah haddaad samaysana way fiican tahay laakiin waxaa nasiib darro ah inaad iska maqasho oo aad iska dhagaysato waqtina kaa qaadato aadan mid ka mid ahna aadan samaynin si fudud oo degdega haddaan kusoo celinno waa in salaadda la yimaado oo la sugo ama marka laga baxo lasii fadhiyo salaadda waa in midigta lagu tukado imaamka midigtiisa lagu tukado safka koowaad iyo sufuufta hore in lagu tukado waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha lagu helo ducada malaa'igta si fudud sufuufta in la dhammaystiro qofka muslimka walaalkaaga inaad u ducaysid qof xanuunsan muslim igaal wuxuu noqdaba inaad soo booqatid muslimka ajri badan inaad wujuuhul khayr wax ku bixiso oo aad noqoto qof kariim ah dadka inaad khayrka u sheegtid adoo weyse qaba inaad seexatid nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad ku sallisid allahuma salli calaa muxamed waali muxamed وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم